aadamku markuu aqligiisa ka faa'iidaysan waayo xayawaankii ayuu ka hooseynaya oo ka hoos bini aadam waa bini aadam xayawaanna waa xayawaan farqi baa u dhexeeya ilaahay subxaanahu watacaala ma simin ilaahay waxa uu leeyahay walaqad karramnaa bani aadam ilaahay yidhi bini aadamka waan karaamayna ilaahay subxaanahu watacaala wuu ammaanay ilaahay aqli buu siiyey wuu kaga duway xayawaanka markii ilaahay bini aadam sameeyey oo uu sameeyey nebi aadam ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igta oo dhan wuxuu ku amray inay dhammaan ay u sujuudaan nebi aadam calayhi salaam malaa'igtu dhammaan way u sujuudeen ibliis ayaa diiday walciyaadu billah ibliisna ciqaabta ilaahay subxaanahu watacaala u marsiiyey waynu wada ognahay oo qur-aanka ayay ku taallaa intaa kadib bini aadamka ilaahay saa u sharfay ee diinta islaamka uu ku maamuusay ilaahay subxaanahu watacaala uu caqlina ugu daray bini aadamku markuu aqligiisa ka faa'iidaysan waayo xayawaankii ayuu ka hooseynaya oo ka hoos maraya waay sidee ku dhacday bini aadamku markuu aqligiisa ka shaqaysan waayo waxyaabaha ama afcaasha uu sameynaya lagu arkayo waxaa ka mid ah inuu dhaqankii xoolaha inuu la yimaado bale uu la yimaado wax xayawaanku ay ka xishoodaan oo kale inuu sameeyo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay in hum ilaa kal ancaam bal hum adal ilaahay subxaanahu watacaala yidhi waaba sidii xayawaanka bal waabay ka sii liitaan xayawaanka qofka bini aadamka ugu horaan caqligiisa waa inuu isagu garaysayo uu isku anfaco oo isagu wax isku taro qofku uu xumaanta iska ilaaliyo wanaagana uu la yimaado marka isagu qof uu iska dhigo akhlaaqdiisa dhaqankiisa diintiisa wax walba ay u dhisan yihiin ayuu noqon karaa mid dadka kalena wax tari kara laakiin qof isagiisiba qabyo ah xuma tari karo cid wax uma sheegi karo magaranaysaa cid dhaqan wanaagsan kaga dayanaysaa ma jiri karto waayo qofkan isagaba u baahan inuu magaranaysaa dee naftiisa islaax uu ku sameeyo oo ishagaajiyo isagaaba u baahan tusaale ilaahi subxaana watacaala wuxuu inoo soo dejiyey diin islaam ayuu inoo soo dejiyey waa diin ilaahi subxaana watacaala uu inagu soo naxariistay oo raxmad ilaahay inoo soo dejiyey weeye qofka diinta qaata waa qof liibaanay ha qaato qofka qalbigiisa iyo maskaxdiisa iyo hamigiisa iyo murugtiisaba aakhira ka dhigta ilaahi subxaana watacaala qofkaa uu garab galaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu ka dhigaa qof badbaaday adduunya aakhiraba sharaf u yeeshaa adduunka intuu ku joogo maamuus iyo sharaf iyo karaama loo hayaa maalintuu dhintana ilaahi subxaana watacaala waxaynu uga rajaynaynaa jannaatu lfirdowsi dhexlaa qofka muslimka ee wanaagsan laakiin qofka xun isagu waxbuu baabi'iyaa oo waxaad maqlaysaa adduun dhan oo lagu leeyahay hal qof ayaa baabi'iyey wadamo dhan ayaad arkaysaa oo lagu leeyahay qof xun ayaa baabi'iyey muxuu baabi'iyey qof wanaagsan baanu ahayn caqligiisu ka faa'iidaysan waaye amba caqligiisii ayuu si cagsi ah u isticmaalay qofkaas wuxuu noqon karaa laba mid ayuu noqon karaa qof jaahila oo jaahilnimo waxaan u geynayso ayuu noqon karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa qof cilmi leh oo cilmigiisa khaldan u fahmay kadibna afkaartiisa ku laayay malaayiin dada ilaahina subxaana watacaala la hortegi doono maalinka qiyaamaha markaa waxaan leenahay innaga oo ka duulayna oo la hadlayna dadka adduunka amba adduunweynaha khaasatan dadka muslimka ee ilaahay subxaana watacaala oo diinta islaamka uu ku sharfay waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala diin ayuu idin siiyey ummadaha ayuu idinka duway ilaahay wuu idin doortay sidaa ilaahay idin doortay ee ilaahay idin sharfay ee ilaahay ummaddan idinka jeclaaday ee ilaahay idinku ammaanay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar uu ilaahay leeyahay ilaahay wuxuu yidhi ummadaha waxaad tihiin ummadda ugu khayrka badnay maxaad ku noqoteen lima yaa rab ilaahay maxaan ku noqonay ummadaha ugu khayr badan ilaahay wuxuu yidhi khayrka ha isfartaan xumaanta ha iska reebtaan ilaahay baa rumaysan ilaahay markuu sidaa inoo ammaanay subxaanahu watacaala inaynu maanta inagoo dhexdeennii ay ka muuqato magaranaysaa dad ay diinta rahayso amba diinta si khalad u fahansan waa wax aad iyo aad looga xumaado cilmigu waa shay lagu faano jahliguna waa shay laga cararo maanta waxay maraysaa heer jahligii xaggiisii loo yaa oo qofka maanta la yidhaahdo waxaasu sameeyey ama xumaanta noocaasa u sameeyey
dadku way jeclaanayaan, waxay leeyihiin ninkii hebelba waxaa samey. malaayiin qof ayaa kaga dayanaya halkay ka carar lahaayeen. muslim 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 qof xun maaha, waa qof wanaagsan, waa qof lama jeerto, waa qof lagu daydo. laakiin ma aha qof laga cararo, qof la necab yahay, qof khiyaamadiisa ay dadku ay isu wada tilmaamaan oo la wada markhaati kaco intuu adduunyada joogo, aakhirana ilaahi subxaana watacaala uu ka dambeeyo. waata keentay maanta bilaad almuslimiin dhammaan inay dadka maanta ay iswada nacaan, ay iswada necab yihiin, oo mid walba midka kale uu haysto hub uu diyaarsanayo. in yarba meelba lagu ootay, maalinba in yar ayaa lala baxayaa. inta kalena waa in ku farxaysa oo ku sacabaynaysa. maxay ku dhacday? qof xun ayaa bartaa ummadda muslimka gaarsiiyey, qof wanaagsan run ahaantii bartaa sooma gaarsiinin. gaal ayaa dabadhigif loo noqday. waxaa la gaadhay heer lala tashado qof gaala oo la yidhaahdo haddaan muslimiin nahay maxaanu samaynaa. kadibna gaalla naf kuma haye oo ku yidhaahdo sidaa iyo sidaa samee. uu rabo inuu adiga uu kugu kala kaxeeyo oo maalinba qayb adiga ka mida uu qaato. dabcan way dhacday, maaha waxaan iska leenahay, waa la wada ogyahay. ummadda islaamka oo dhan iyo caalamka oo dhan ayaa markhaati ka ah arrintaas, waa la wada ogyahay. isla markaana waa laga wada warqabaa. markay dhibaato dhacdo waxaa loo baahan yahay xal. maxaynu ku xalinaa? ilaahi subxaana watacaala kitaab ayuu inoo soo dejiyey qur'aana. kitaabka qur'aanka wax walba oo lagu badbaadiyo waa laga helayaa haddii loo noqdo oo isaga la diraaseeyo. waata keentay maanta gaaladu intay dubu eegaan inay iyagu ay ku dhaqmaan waxyaabihii leenoo baahnaa inaynu ku dhaqanno. hadday noqoto garanaysaayay dadnimadii oo kale, for example dadnimadii oo kale way nagaga horreeyaan. qofka gaalkii ballanka wuu ilaaliyaa, beenta ma sheego. waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabahii diinteena suubane ayna farayso, sida cilmiga dibbiga oo kale amba dhakhtarnimada, sida dadka loo daweeyo xanuunsanaya oo kale. waxay ka eegtaan kitaabka qur-aanka ah, waa la wada ogyahay. markaas inagu run ahaantii kitaabka qur-aanka waynu akhrinaa. weliba intayna wax akhrida way akhrisataa, laakiin camalfalkii ayaan meesha ku jirin oon ka dhex muuqan. waayo shayga markaad barato waxaa loo baahan yahay inaad dabaqdo oo aad ku camal fasho, oo qur-aanku wuxuu ku amrayo aad la timaado, wuxuu kaa reebayana aad ka tagto, muxaramaadka oo dhan aad ka tagto. waxyaabihii ilaahi subxaana watacaala uu ku yidhi ka qaadan aad ka qaadato, waxyaabihii uu yidhi ka tagna aad ka tagto. oo tusaale ahaan ilaahi subxaana watacaala waxa uu leeyahay الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. dadka hadalka dhagaysta ee kiisa wanaagsanna qaata, kiisa xunna ka taga. kuwa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin ulul albaab, dadka caqliga u saaxiibka inay yihiin, dadka caqliga leh. maanta qof waxaad arkaysaa sheeko dhagaysanaya, sheekadaas inta xun ayuu ka qaadanayaa. waa mushkiladaha in haysta ee igu kalifay inaan bartan idinkala wadaago siday waxu khaldan yihiin aynu isla eegno. dabcan haddii aan khaldanahayna de waan khaldami karaa, haddaan saxanahayna waa min allaahida. qof wal oo muslina oo diinta islaamka haysta dabcan mas-uuliyad ayaa ka saaran, oo waxaa loo baahan yahay inuu qofka muslimkii uu dadka kale soo jiito. waayo waxaa jira milyaaro aan diinta islaamka aqoonin, bale aan maqalba. dad aan diinta islaamka maqal ayaa jira. waayo dee diintii baynaan xil iska saarin, waajibaad inaynu saaran yahay baynaan ogeyn. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam keligii ayagaa lasoo diray, keligii buu ahaa nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. maantana iftiinka ilaa maanta inoo baxaya aynu ku dhex nool lahay ee quruxda badan nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayayna kaga tegay.